24 qoys oo kamid ahaa dadkii ehelkooda ay ku dhinteen weerarkii 14 Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho iyo dhaawacyada isbitaal Madiina hadda yaala ayaa waxa la gaarsiiyay deeq kalma oo ka timid dad Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool. Sheekh Maxamuud oo Cabdulla Cariif oo deeqdaani loo soo wakiishay ayaa faahfaahinaya dadka la soo diray iyo dadka ay u qaybiyeen iyo sida ay u kala daran yihiin. waxa weeye lacagtaas waxaan ka dhignay laba qaybood. qayb aanu maaragtay siinayno bukaanka jiifa isbitaalka oo aanu maaragtay u qaybinayno iyo qayb aanu u qaybinay dadkii maaragtay dadkoodii ay geeriyoodeen oo agoontii loogaga tagay oo hadda aad arkaysaan iyo dad kale oo aan maaragtay soo gaari karin xataa meeshan in la keeno oo loogu tagi doono xaafadahooda iyo meelo kalentoodo amba cuuriyana amba dhibaataysan ama si aan macduur u ah. marka insha Allah ta'ala khayr ilaahay idinka siiyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay uguna duceeyaynaa ummadan cuuriyaanta iyo masaakiinta iyo dhaawaca iyo dhibaatada qaban idinkugu duceynayaan inaad maaragtay xoolihiina aad bixiseen ilaahay agtiisana idin yaaliin annaguna aan maaragtay ka ajir xusubsanayno aanu waqtigeena inaan gelina aanu doonayno maadaama la heli karo dad Soomaaliyeed oo ahlu khayra oo duceysanaya oo waxooda la baxaya. agaasimaha isbitaal Madiina Dr. Maxamed Yuusuf oo goobjoog ka ahaa kaalmadani qaybinta ah ayaa dadka Soomaaliyeed ee lacagtaani soo wakiishay iyo Sheekh Maxamuud oo Cabdulla Cariif ku amaanay sida amaanada leh ay dadka u caawiyaan. sheekh aan ku naqaano yani wanaaga iyo kaalmeynta iyo wax kasto iyo xataa gargaarka iyo waxbaridda mujtamaca Soomaaliga ah marar badan oo isbitaalka loogu yimid maanta waa yimid bukaanadeena wuxuu u qaybiyay wax wal oo lacag u qaybiyay lacagta waa siiyay bukaamada ka bacdi waxaa jiro mataqaanaa 24 qoys oo dadka geeriyooday yani dadkooda ah ayaa isbitaalka la isugu keenay oo sida arkayseen oo mid lacagta uu qaybiyay. عبد الرحمن عبد الله هون كابل TV مقالة مقدشو.